gacanka Hormuz iyo saamaynta uu ku leeyahay dhaqaalaha caalamka. Haddii gacanka Hormuz ay xirto dowladda Iran, maxaa dhici kara? Waxaa dhici kara qalalaase weyn oo saameeya dhaqaalaha iyo ganacsiga caalamka. Gacanka Hormuz waa marin badeed oo aad u muhiim ah, sababta oo ah inta badan shidaalka laga soo saaro wadamada khaliijka waxa uu maraa dariiqan si uu u gaaro suuqyada caalamka. Shidaal aad u badan oo ka yimaada wadamada khaliijka sida Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Qatar, isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa mara gacanka Hormuz. Sidaa darteed, haddii marinkan la xiro, sahayda shidaalka adduunka waxay noqonaysaa mid yaraata, taas oo sababi karta kor u kac weyn oo ku yimaada qiimaha shidaalka. Xiritaanka gacanka Hormuz wuxuu si gaar ah u saameynayaa wadamada khaliijka ee ku tiirsan dhoofinta shidaalka. Sidoo kale wuxuu saameyn togan ku yeelan doonaa wadamo waaweyn oo shidaalka ka soo dhoofsada wadamada khaliijka. Dhanka kale, Iran laftigeeda uu ku goodiday inay marinkan xiri doonto ayuu ku yeelan doonaa saameyn dhaqaale oo togan. Sidaa darteed, gacanka Hormuz waa meel istiraatiiji ah oo aad muhiim uga ah dhaqaalaha iyo ganacsiga adduunka. Wuxuu xagga cuntada ka saameyn doonaa wadamada khaliijka iyo wadamada Afrika oo cuntada la cuno ka soo dhoofsadaan dalka dibadiisa. Wadamada khaliijka sidoo kale waxaa ku dhici doonta biyo la'aan togan oo maxaa yeelay biyaha la cabo waxaa laga sifeeyaa biyaha badda. Haddii Iran ay duqayso warshadaha biyaha ay soo saara wadamada khaliijku waxay noqon doonaan kuwo oomana ah oo aan biyo lahayn. Wadamada khaliijka waxay dhoofiyaan shidaal si ay u helaan lacagta dollarka ah, kadibna ay ku soo iibsadaan badeecooyin kala duwan oo gudaha gobolka ay keenaan.